wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo maalmihii u dambeeyay ku sugnay degmada Saylac ayaa saaka si rasmi ah xariga uga jartay xarun weyn oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan laamaha dawladda ee dhamaanba ka shaqeeya magaaladaasi loo yacado ee ku taala xuduudka u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Djibouti. xariga jarkani oo loo sameeyay munaasabad aad u ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliin aad u tiro badan oo ay kamid ahaayeen safiiro taliyayaal ciidan oo ka kala yimid dalalka Soomaaliland iyo Djibouti sida taliyaha booliska ciidanka Djibouti iyo taliye xigeenka ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan. dhanka kale waxa goob joog u ahaa munaasabadani barasaab ku xigeenka gobolka Selel maayirka degmada Saylac iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Saylac. xariga jarkaasi kadib waxa wasiirka iyo wafdiga la socdaayba indha ku soo sameeyeen dhismaha xarunta dawladda ee magaalada si loo yacado oo wasaaradda maaliyaddu ka hirgelisay sanadkii hore. intaasi kadib waxa halkaasi kala hadlay saxaafadda mas'uuliin aad u tiro badan oo dhamaantoodba ammaan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddaxileedkiisu dhamaaday mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxa la dhisay 1957 kii baa la dhisay aqalkan. waxa maanta ku guuleystay dawladdii Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ku guuleysatay inay dhiso. Samsam Cabdi Aadan baa boogahay iyada dhisay. waxaan u imid inaan u mahadnaqo. waxaan codsadeen oo lagu ololeynayay in la dhimi doono. waxaan ka codsanaynaa intaan ka tagin goobta inaad kaba raaciso oo aad dadweynaha naxariis u fidiso. wax qabadka aad samaysana waan kaaga mahadnaqay. wixii ay u qabatay Soomaaliland wax ka sokoyay noo qabatay. ambalaaska caafimaadka waxbarashadii dhakhtarkii ma garatay kaan maanta hoos joogno. waxaan leenahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa Marwo, aad baan kugu mahadcelinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo ogolaanshaha siiyay Marwo inay wasiirku inuu fuliyo hawshanna. isagna waxaan leenahay aad baan kugu mahadcelinaa. intii ay Soomaaliland jirtay gurigan waa duusanaa mudada 30 sanadood ah. horumarka ballaaran iyo quruxda maanta inoo muuqatay xarigaanu ka jarayno iyo farxadda ay noo sameeyeen madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ay tow ka tahay wasiirada maaliyadda. wajigaas oo loo dalba taariikh gaar u lahaa horena ahaan jirtay dhismaha ugu dheer degmadan qayb weyn ka ciyaartay gobonnimadii Djibouti. nin kastaba wuxuu qabtay taariikhda qorta. Marwo Samsam wasiirka maaliyadda wuxuu qabtana wax muuqda. madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo runtiisna aan ku soo dhaweynayna insha Allah dhawaan xilka la wareegi doono haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan runtiisna mahad gaar ah u dirayaa saan horeba u idhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle runtii ahaa madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliland madaxweynaheeda markii la doortay u soo hambaliyay. guntiga gabagabadii waxa xafladaasi soo afmeertay wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan waxaana tiri oo laakiin sayidku aad ku mahadnaqdaan wixii la idinka qabanay waa la idin soo celiyay. laakiin maadaama duruufo ay jiraan oo qofku intuu Djibouti tago isagoo wax yar ka soo iibsanaya haddii kolba fiisihii iyo lacagtii laga qaado culays bay ku noqonaysaa. marka waxaanu ka tashanaynaa oo runtii aan idinku ballan qaadaya in aad iyo aad isdhimis badan lagu sameeyo cashuurtii. Maxamed Cawaale Daahir Home Cable TV magaalada Saylac.